وهي hablaha Soomaaliyeed haddaysan dumar jir lahayn dunidan maanta ma jirteen haddaysan dumar jir lahayn adigu ma aadan idaawateen haddaysan dumar jir lahayn anigu inta ma soo fadhiisteen dumarku wayna dhaleen dib bay naga soo mareen intaanay nala soo ekeysiiyeen waxa dameer xumo ah in lagu la dhaqmo wax laga yaqyaqsoodo ninka dumarka dibkaas kula dhaqmaaya isku diin ma nihin isku dhaqan ma nihin isku dadna ma nihin ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida ka jirto waa salaamaya بريان ده محد موسى فرار حوق وحبنا ندرس ودرسيان وهبلا الصوماليين وكل كعيو واحد يقول أصلا لها ورهبوا ما دام ينور الله مر ينور دحين مر أي ندرين إنتي باتوي كل جد هيا أصلا توصليا والسلام عليكم وليد مارو وليد مارو ninkaad la dardarmaysaan ninkaad la daadaalisaan ninkaad danta kula jirtaan ninkaad caqli dabaasidaan dawada guushuu helaa hadduu ragu doqonsanaa gesiya diricuu noqdaayo dushiya caaduu tagaa haddii uu dulqaad yaraa midaan waxtan qaabiniyo duqiinaba hadduu noqdaa waylan darajada haweenku ilaa waa wada dulqaadka war hablaha sideen ha laga daayo war hooy hablaha sideen ha laga daayo haddaan Soomaali nahay waxa aad leenugu ammaan jiray inaan hablaha ilaalino hadda tii Kinjecelo, what do you think hablaheena Soomaalida kufsiga xumaatada loo geysanayo wallahi drinkiga aad u kacsiya ma soo koobi karo ninka saas sameeynaayo masraga saas sameeynayaan wallahi hablaha Soomaaliyeed qiimo leeyahay hadii ogaan lahayn meesha sameeyeen miisan ogeen hooy macaan inay tahay wallahi jaad macaan inay tahay gabadhaad macaan inay tahay xaaskaaga macaan marka hablaheena Soomaaliyeed qiimo iyo qaay ay leeyihiin sharaf iyo mudayihiin in laga usima ahaan in laga qosliyo mooyee wallahi hadda aniga fanaaniinta Soomaaliyeed ahaan u taagan hablaheena Soomaaliyeed u hiilay hablaheena aad u maasantihiin oo kamid yahay xidig Jesus Weir meesha ka sii wada hadda anaga nahan North American sidoo kale u taaganahay dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walba hablaheena Soomaaliyeed alla ay qosliyo garabkeen guul iyo gobonimo peace and love haddaan nahay ragga Soomaaliyeed dhibaatooyinka dumarkeena haysta innaga ayaa ka mas'uula kulligeen rag hablaha ka xishoon waaye waa rag hooyadood ka xishoon waaye waa rag ku xadgudbay walaalahood ama hablaha ay dhaleen imika laga bilaabo waxaa loo baahan yahay midnimada sidaan u difaaci lahayn uguna heelin lahayn hablaheena Soomaaliyeed meel kastoo adduunka ka joogaan waan ognahay inay dhibaataysan yihiin wallahi waanan ka xumahay waanan ka damqanaynaa umana dul qaadan doono intan iyo in ka badan doono waanan istaagnaa waanan midaynaa waanan iyaga difaacnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan idin salaamayaa anigoo ah Axmed Saki anigoo ku hadlaya afkayga iyo afka fanaaniinta Soomaaliyeed barnaamijka ah u heeli gabdhaha Soomaaliyeed waxaan halkan cod dheer uga dirayaa oo baaq dheer uga dirayaa ragga Soomaaliyeed waxaan leeyahay we are lucky new ragga ugu nasiibka badan adduunkeena nahay ilaahay wuxuu na siiyay dumarkii ugu quruxda badnaa ugu qaalisanaa ugu sharafta badnaa ugu udgoonka badnaa ugu nadaafada badnaa ugu kartida badnaa marka inaynu ilaahay ku mahadnaqno oo alxamdulillah nidhaahno waa waajib dumarku teeda labaad way nala dhasheen wayna dhaleen way noo dhaxeen waynu dhalnay dhinac walba dhinacna uma kala maarano marka nimanka farxumaynaya iyo nimanka fadeexada ka duubaya iyo nimanka ceebta la socdo waxaan leeyahay hala ilaaliyo dumarka dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay alla iska saaro xil weyn xaquuqda dumarka Soomaaliyeed walaalahiin gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan waan garab joognaa meel walba taagan yihiinba Allah xafido السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا اللي روكوبن من لوداغو أيان روا صاحبتي رجع الصوماليات صدق باهم برسنتي سجاشن يتضوض كله وناكسن هو أقولانينا إني رجل مدينة الصومال مدينة أي ملك جد عن صدق باهم أي عورتي قبلها الصوماليات مروا البطنان كينان قبلها أنا واحد بان ربعنا لوداغو
gabadhay qalbigaaga ku aamin hantidaada ku aamin wax walba oo kale ku aaminin laakiin sharaftaada iyo sumcadaada ha ku aaminin oo marnaba ha ku aaminin waad mahadsantihiin hala ilaaliyo soomaalinimada iyo wanaagga iyo islaamnimada iyo sharafta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسج كانوا بقص بعد ما نهبلها الصوماليات نول والبيتشوغان شرف بعد ليدهين قيمة ليدهين قيمها الليدهين وحا كرنكرا قف ضمير له أما نين رجعة أو ضمير له نين رجعة أو حمان تضمر كرادين يو قبلها الصومالية حمان بيان كإلالي كان حمان تصمينا يهدات قامة كتشوج قبلها هنا هلا بروتكت جريه هلا إلالي wanaagooda iyo sharaftooda iyo cisadooda hala ilaaliyo waxaan la hadlayaa ninka xun ee social media ama views ku raadinaya ama gabar Soomaaliyeed advantage ka qaadanaya please waa hooyada waa walaasha waa dhashay waa xaaskaaga intaas in lagu sameeyo waxa aad sameynayso ma jecli fadlan ka fogow xumaanta aad ku sameynayso gabdhaha Soomaaliyeed I love you guys hablaheena waan jecelnahay guul iyo gobonimo aan idin rajeynayaa inta xumaha wada down. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول خالد أبو بكر محمد صبر خالد وحن عذر وعم بارينا يا رجع هذه استيني قبلها سوماليات فضيحيان أما متقنا الريب جريان مركا وحن هي اللي هو بلقرب تاجنا هبلين الصوماليات وهي اللي هبلهنا وين لا دشين وين دلين وين ودحين وانا دلني marka waxaan leeyahay walaalayaal dhalinyaro ka digtoonaada